wiil baa habeen dhawaato taxi igu qaaday taxi baan kireystay markaan dhaxda sii mareena iska sheekaysanay waa magaaladeena markaas wuxuu ii sheegay hadalka aan sheekaysanayna qiso soo maray wuxuu caawa waxaan arkay wax la yaab leh gabar caruur banaan la taagan baa gacanta ii haadi suuri gabadhii baan qaaday meel baan geeyay markaan dajiyay yaa waxay tiri wal maad i garan way walaal kuma garanaa idin hebel mad garan mayaan iribu bari aad arday ahayd oo magaalo fulaan oo wadan kale magaalo fulaan aad joogtay nin aad dukaan u kala jirtay maad garan haa ninkii islaantiisaan ah haa walaalay maxaa kugu dhacay adigoo qurux leh oo sharaf leh baan ku ogaayay maxaa kugu dhacay waxay tiri qisa igu dhacday qisadii baan rabaa inaan kaaga warramo waxaan ku weydiisan bay tiri cafis iyo musaamax ilaan sidiisaba shayga mar wax laga qaban karo iyo mar aan waxba laga qaban karin baa jira mar midii oo isku tagtay waxba laga ma qaban karo waxay wiilka wuxuu yiri arday baan ahaa buur qisadii buu markii iga soo warramay arday baan ahaa buur ardaynimada dhamaystay magaalada aan joogay nin oday ah oo dukaan ku haystaan u noqday buur shaqaale asaga wuxuu meel kale iska aaday dukaankii ma dhowr sano hayay buur maalin dambe uu soo noqday dukaankii buu xisaab xir dhaq ku siiyay xaari dukaanka ma waxa ka maqan maya lacagtaydii baan rabaa wuxuu wax lacag iyo wax shilinood igu leedahay malaha khaa'in baana tahay war maxaa dhacay on khaa'in ku noqday dukaanka ma waxa ka maqan maya waa dhameystiran maxaa marka shaqada ii dhigtay waan ka soo baxay mushaarkaygu u isii intaasaan kugu leeyahay wuxuu waxaad igu leedahay malaha khaa'in baana tahay oo cidaydaad ii daba martay oo islaantaad iga shukaansan jirtay islaantaydii baad iga shukaansan jirtay oo yaa kuu sheegay ayadaaba ii sheegtay buuri ma dhici karo qof wax lagu tuhmaayo inuu tuhmadii dhaho arrintaas ay qabsan wuu dhihi karaa qofku way soo weeraray laakiin wuu ishukaansan jiray oo waan la hasaawi jiray qof ceebta isku qiri malaha waxaan walaalow arrintaa ma jirto ani islaanta marwanimo iyo ikhyaarnimo umbaan u sharfi jiray wax intaa dhaafsan oo noo dhexeeya ma lehe waxa xaqayga ha ku dafirine xaqayga isii wuxuu wax xaqood igu leedahay ma leh haddaad sii taagnaatana waan ku xiri anoo madluum ah oo ilintu ay iga da'ayso bar iridda ka baxay buur ilaahay baan la hoos galay buur ilaahay oo adan kugu dhaaf waa iska soo tagay meeshaan aan imaado taxi baan iska qaatay taxiilaan iska noqday gabadha waa tiri buur horta dukaanka waxba kaama dambayna abaarkaadi uu nagu dhacay koow oo wuu baaba'ay waxba maanta lagama hayay tiri waa dukaanka helo sadka inta la eka odaygina waxay ugu khaariqay yaani waa faqiiroobay labadii kaliyoodna way fariisteen maalin walba intaasoo lacag baa lagu dhaqaa hadda markii wax loo waayay oo laga daalay oo laga cajisay masaajidda wax looga goraabay tiri masaajidda wax loo meelahaas looga tuugsada aniga waxay tiri heerka markuu ninkii marayay waa la iga furay ilmihii baan la soo cararan meeshan la imaaday qaad baan u galaabay tiri banaanka iyo qorraxdaas u fariistaa wixii aan ka soo helo qorraxdaas yaan caruurta waxbarashada ooga bixiyaa kuna masruufa isha aad ila yaabantahay waxa igu dhacay walaalo waxaan rabnaa inaad nacafiso si odaygana uu caafimaado annagana aad maartay noloshan wax ka bedelaan aan u helo maxaan wax ka qaban karaa wixii waba dhacay marbay tala la simaneed hadda maxaan ka qaban karaa hadda wax laga qaban karo walaalayaal dulmiga fiir war markaad isla weyntood wax ismoodayso waa maalmo laakiin tii ilaahay meel bay ka qoran tahay intaad xoog galeeda ummadda ha dulminin oo ninka ajiirka iyo shaqaalaha wixii xaq u kugu leeyahay sidiisa u sii walow gaalba ha noqdee